قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله كل صلاة baan nidhi bal masaajidka iyo jamaca hala soo tukataan iyo sheekha oon habeen dhaweyto wada hadalana nidhi insha Allah markaan baxayna soo ziyaaran doonaa ziyaaradaas baan igu imanay salaadina waan wada tukanay Allah inaga aqbalo salaadu waa tiirdhaxaadka diinta islaamka weeyaan waana meesha qofka laga gartaa ma muslim ba mise muslim ma gaaladu diinta islaamka meesha ay ka soo galaan waa shahaadateynka weeyaan laakiin muslimku isagu meesha diinta islaamka uu ka gala waa salaada weeyaan muslim baan ahay mana tukanayo isma qabanayso axkaamta islaamka oo dhan ma cada salaada waxaan ka ahayn oo dhan nabiga sallallahu alayhi wasallam dhulka loogu keenay oo jibriil baa loogu soo dhiibay calayhi salaam laakiin salaada nabi maxamed baa loo yeedhay soo qaadashada nabigu salaada uu soo qaadanayay asaga iyo rabbiga cidba uma dhaxayn ahamiyada salaadu ay leedahay eeg waana micraajka qofka muuminku markuu doono ilaahay inuu la munaajoodo meesha ilaahay qofka muslimka uu kala hadlaa waa salaada weeyaan ilaahay meeshaad kala hadlaysid eed arjigaaga maaragtaan aad ugu gudbinaysid waa salaada qofka salaada aan lahayn waxay ka dhigan tahay qofkaas ilaahay xiriir lama la weeyaan waana dardaarankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu dhimanayay uu ku dardaarmuu lahaa الصلاة وما ملكت أيمانكم ورهوي بنبي لها صلاة كود دالة وصلاة إلالية وصلاة كود دالة حق إله ويان صلاة وما ملكت أيمانكم وحقوق العباد تذكر أضومها إلهي قعنتين وسوق لي يدومر كان أسيرات كي أقلد إن يقول حرنا ملك لأنو بحينين ayakana labadaana xuquuqdooda iska ilaaliya buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xaq ilaahay wuxuu nabigu ka dardaarmay waa salaad xuquuqda bini aadankana waxa uu nabigu ka dardaarmay waa labada dad ee dadka ugu taageer adoomaha la adoonsado oo bariga adooma ayaa jiray iyo dumarkan haweenka aqalada ay noo joogay ilaahay azza wa jalla wa aqalada ay noogu dhex sugay عمر بن الخطاب الله رالي كان نقضي isaguna markuu salaad isagoo ku jira ayaa la duray Umar ibn Khattab oo midida la galiyay rakaacadii koobaad buu tukaday rakaacadii labaad isagoo aanan tukan ayaa midida la helay dadna uu dhig baxay markaas la dul yimid Umar ibn Khattab aani halka laga siiyay meeshii midida laga galiyay aanu ka soo boodeen baa la yiri markaas waa amiirka muuminiinta inuu dardaarma laga rabaa si kasta loola hadlay Umar ibn Khattab naftii waa ku jirtaa laakiin hadal ma soo celin karaayo nin baa yimid oo war ana hadal lagu kiciyaan haya Umar ibn Khattab iyo kaadiye buudi waa nin kooma ku jir hadee toole waxa Umar lagu kiciyo koomagi lagaga soo kiciyay as-salaata ya amiir al-muuminiin muuminiinta oo dhan ilaahay ninkii madaxa uga dhigayo salaadii baa gaadhay salaadii baa taagan ereyga markii Umar uu maqlay indhuhu saa u kala qaaday markaas uu innaha haqqun wala hadda fi al-islam man taraka salata buu yiri wuxuu ka bilaabay horta inuu salaadii ma dhameystirin baa loo ragcad baa ku dhiman oo xidhay haddana koomu galay haddana uu soo kacay ma tukade ma tukan baa lagu yiri ma dhameystirin haddana uu xidhay haddana koomu galay markii saddexaad buu dhameystiray markii la yiri waa tukato salaadii waa dhameystiratay ayuu yiri
الحمد لله الذي أعانني عليها بول إله إيقو كالمي إيقو عاويي إنا صلاة أن تكدان أمها النقيا بولي وكما وحو كجرو هدنا صلاة دما يشترايو إنا كان وحا لغايا ودد بدن ومسلمين يكو عقلقي وشقين يو عافماتك وشقين يو دغوهوغي مقلكو وليبا سفي عنو شقين يو أدنك أي مغليان ومساجد ودا قروحدا بدن لا meel walba looga dhisay ayaa hadana maanta ummadda salaadii lagu kari laayahay intii badnayd markaas Umar yiri salaada waa xaq Ilaahay nagu leeyahay qofka salaada ka tagayna diinta islaamka nasiibka uma laha ogaada buu yiri amalka ugu horeeya qofka aakhira markuu taga loo xisaabina waa salaada haday hagaagto amal kasta waa hagaagi buu nabigu kaleey salaatu wasalaam haday qofka salaadu ay ka xumaato buu nabigu yiri wax walba waa ka xumaanayaan qofkaas nolosheenan adduunyada xataa maanta aan la rabnay inay noo hagaagto salaada hagaajinaysa dad badan waxay moodaan nolosha lacagtu inay hagaajiso cidhiidhiga waxa lagaga baxaa waa salaada faqriga waxa lagaga baxaa waa salaada dhulliga waxa lagaga baxaa waa salaada nabi Muuse alayhi salaam reer bani Israa'iil oo la guumaysanayay buu u yimiday muxuu guumaysigii kaga saaray wa waxayna ila Muuse wa akhihi an tabawwa liqawmikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimu salata wa bashiril mu'minin salaada la yiri kaalmaysta aqaladiina qiblada u jeediya baytul maqdis buu tukanayeen iyaku Muuse alayhi salaam reer bani Israa'iil wuxuu u la yimiday dulligan iyo daaduunkan iyo qaxootigan iyo faqrigan iyo cabsidan haddaad rabtaan inaad ka baxdaan salaada ooga buu ku yiri xiriirka iniki yar ilaahay ni dhaxay adkeeya nabigeena Muhammad alayhi salaatu wasalaam markii sagaalkii aqal ee nabigu uu lahaa mid walba intuu soo maray buu ka waayay bad wax la cuno nabigu ka waayay biyo mooyaane asagoo murugooniyo marka nabigu masjidka iska soo galay aayadana marka ku soo degtay wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa salaadi arzaaqadi baa la isku xidhay inaku imika arzaaqadku salaada kama raadiyaan arzaaqada waxa ka raadinaa shaqo iyo aqoonta adduunyada iyo qaxooti iyo Soomaalidu waa qaxaysa moogta ilaa imika qaxooti salaada nabi maxamed lagu arzaaqada ka raadi salaada ehelkaaga farida aad faraysana baa nabiga lagu u adkayso u sabir arzaaqadku weydiin mayna adiga anaga ni qudinayna khayr oo dhan hadda doonaysid baa nabiga lagu yiri dadka ilaahay ka baqoon ba khayr ka dambe heli doona khayr dhamaantii hadduu adduun khayr yaalo waxa lagu helaa baa nabiga lagu yiri alla ka baq ilaahay ka cabso nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam إمام المتقين بوها لكن إنك 10 كلينا سينيا صلاة وناكسن حتى الزمن كي نبينا محل لقوه لي مدحتنين بلقوه لي نبي محمد مالين تو غيريو دي نينكي تلاده امه لودي ابو بكر بوها هل كو ابو بكر كسو غل خلافه الاسلام كبا ليدو نبي محمد نول با لغو يو نبي